عدي قيبت كوباد أرضي قارسة بقولي أفرتن إسبدل كقبلكو دينع والبابا وحو إيمانيا مركا لهلو للي يرون أكسن أو وحبرتي أو هرمريا مستقبل كوفا كريسة مركاس أيا إسبدل دبا إنو قارنا حق هرمركا حق النبت قليدا حق تعلينتا دينع والبابا waxa dadkii bedeli lahaa maanta ee gobolka wax weyn ka muujin lahaa waa ardaydan maanta inuu hor fadhido weeye waxaan leeyahay marka hambaliyo dhamaanba gobolka Sool marka inta ka gudbo hambaliyada iyo tahniyada qiimaha badan la aanu gudbinayaa ardayda arrimo badan ba halka kan laga taabtay waxaan ugu horeysiinayaa horta xagga dhaqanka waxaan aad ugu mahad celinayaa iyagana dhalinyaradii gabayga iyo suugaanta halka kan inoo soo jeedisay oo suugaan qiimo leh halkan inooga soo gudbisay iyagoo waliba ku libisan dharkeennii quruxda iyo qaayaha lahaa ee dhaqanka inoo ahaa haddii aan maanta ogahay inay suugaanyahankani ka soo qaybgalayaan iyagoo dharkii dhaqanka sita dharkaasaan la soo gashan lahaa waayo waxaan aad u jeclahay xagga dhaqanka goobaha badan oo aan ka qayb galo meel kastabana waxaan ku booriyaa dadka xagga dhaqanka waana ku faanaa markaan idhaahdo gobolka Sool baanu nahay waxaanu ku faanaa waa gabayga suugaanta geela iyo gamaanka iyo gabdhaha waxaan idhaahdaa gabdhaha iyaga boqol geela iyo barqa baa laga bixiyaa golayaasha maartay gabdhaha wax ka yar anigu kuma meheriyo marka hablaha waxaan leeyahay u guuriyo aad waxaan gaar ugu mahad celinayaa gabadha lambar 1 ka gashay qaayaha leh ee halka soo fadhida waliba iyadoo ah sidii hadii ay badan leeyahay hablaheenu ay ahaan jireen aad si gaar ah baan gabadha ugu mahad celinayaa hambaliya baan ku leeyahay kalsoonidu waa waxkeeda iyo macallimiinteeda ardaydan ku soo tacabtay waxaan leeyahay tacabkiina waa muuqday ilaahay khayr ha idin kaga abaal mariyo abaalkeedana waad heli doontaan adduunkana waad heli doontaanoo waxa soo arday oo maanta wada mutacallimiin aad soo saarteen dawaydiin abaal gudi doonaan warmiyaad ilaabi doontaan jaamacada iyo macallimiintii idinku soo tacabtay waxaan filayaa jawaabtu waa maya ilaahay xaqiisana waad ka helaysaano waxaan bixinay shirkadda dahabshiil $10,000 waxaan ugu talagalay hool in lagu dhisayo markaa wali taa lama fulin haddii maanta hoolkii dhisan yahay waxaa dhici lahayd inaan iyaduna mid kale oo kaasha goobta ku bixin lahaa laakiin markii tii hore aynan wali fulin hadda mid kuma bixin karo aan oranayo maanta intaan bixinaya waayo waxaasaan qabtay waka laakiin waxaan ballan qaadayaa jaamacada 500,000 sheekhu sheegay aadan wali wuxuu ballan qaaday tobanku buu ballan qaaday waa 500,000 kala horjina saad gartayma laba laabkeed iyo saddex laabkeed buu aan ka qayb qaadanaa waana ballan hadii ilaahay yiraahdo waan dhisanaa jaamacada waana ku dhiiranaa hadaynaan dhisin dhulkeena iyo jaamacadaheena aynaan dhisin maxaynu marka qabsanaynaa jaamacaduna waa laf dhabarka gobolka weeye xagga kale calina wuxuu nagu gaaday xoogay boqoshadu ku soo riday annagu mid joogtaa baan bixinaa sanad walba jaamacada lacag baan siinaa sanad walba lacag joogtaa may sheegin maamulka jaamacadu saad gartay ma had celina nooga ma celin waxaan la garab taaganahay ardayda iyo jaamacadaba sanawiyan iyo wixii qayb guud aba diyaar baanu iyadana u nahay waana ku dhiirinaa bulshada jaamacada haddii ilaahay yiraahdo waxaan u mahad celinayaa arday Qalin Jbaintii guud ahaan waan u mahad celinayaa gaar ahaan waxaan u sii mahad celinayaa ardayda maanta aniga sida gaarka ay ugu Qalin Jbaintii ee goobta tan iyo xafladda tan joogta waxaan leeyahay hambaliyo mabruuk aad baad u mahadsantiin nin baa iga tagay oran jiray doctor haddii beedakada leeyahay Cabdulqaadir Axmed Xandulle oo gobtan ugu tuuray odagu Mareykan buu ka yimi waa anigu waa u xil qarinayaa waa guud
odaygu hablaha la ogaado alla hablaha la ogaado aniga ka weyne